wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo la xiray 31 Agoosto laguna xiray magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa maanta waxa uu ka baxsaday xabsigii uu ku xirnaa. Booliska Soomaaliya ayaana war ka soo saaray baxsashadiisa. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska General Sakiyo ayaa sheegtay inuu baxsaday wasiirkii amniga Jubbaland waxayna sheegtay in laamaha amniga ay ku raad joogaan. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ayaa sheegtay in Cabdirashiid Janan in loo haysto dambiyo kala duwan waxayna shacabka ka dalbatay in ay soo wargeliyaan haddii ay arkaan. xiriirka Jubbaland iyo dawladda federaalka oo ahaa mid gabaabsi ah ayaa la tilmaamaa inuu sii horinayay xarigani waxaana dhowr mar Jubbaland ay sheegeen inay guddi u saareen si loo soo daayo wasiirkooda amniga. xariga wasiir Janan ayaa waxa aad uga xumaaday shacabka ku nool gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya iyagoo dawladda ka dalbaday in la sii daayo. wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa lagu eedeynayaa inuu geystay tacadiyo ka dhana shacabka ku nool gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya iyadoo hadda aan la soo taagin wax maxkamad ah. maanta ayuuna ka baxsaday xabsiga uu ku xirnaa. si kastaba ha ahaatee wasiirkii amniga Jubbaland ayaa 31 Agoosto laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana xilligaasi loo dhaadhiciyay xabsi waxaana xirnaa muddo 5 bilood ah. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya laguna tiriyo xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa su'aalo ka keenay baxsashadan uu baxsaday wasiirkii amniga Jubbaland. uu yiri sida tan xildhibaan Axmed Macalin Fiqi intaana loo sheegin fakashadiisa ummadda ha loo sheego xabsigii uu ku xirnaa oo sidaas ugu fudud in laga baxsado. marka labaad yaa mas'uul ka ahaa wasiirkaas la soo afduubay oo loo xil saaray ilaaladiisa. marka saddexaad ma dhici kartaa in warkan baxsashada ah lagu marmarsiinayo in la qaarajiyo oo saacadaha soo socda ay Zakiya mar kale noo sheegto isagoo sii baxsanaya ayaa askartii ay dhisay xabado ay ku rideen ayuu yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. ugu dambeyn waxa uu yiri wasiir Janan waxa isagoo nool afduubtay dawladda federaalka waxa isagoo nool laga rabaa dawladda federaalka wixii intaas ka soo haray waa riwaayadii raqiiska ahayd ee kooxda Filla Soomaaliya ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi.